بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaaladii waxaan bishaarkeynaya maanta haddii alla yidhaha qiso aad iyo aad cibro ku jirto oo faa'iido midhan leh oo ku salaysan baarinimada waalidka loo sameynayo midhaha ay leedahay adduunka intaan aakhiraba la gaadhin. qisadaas oo ka dhacday sacuudiga baa ka sheekeyn doona insha allahu tacaala. waxaa jiray inan dhalinyara baa jiray oo la noola aabihii oo oday weyno waayeela. odayga deen baa show lagu lahaa, ninbaa deen ku lahaa 90,000 oo riyaal. maalin maalmaha ka mid ah ninkii deynka lagu lahaaba aabihii u yimid, odaygii waayeelka u yimid soo siyaartay oo inankiisoo la joogo goortaasi ayuu soo siyaartay. marka wuxuu ku yidhi waad ogtahay in deyn lagu leeyahay ay waajibtay waqtigii soo gudagalay la gudi lahaa, intaa in ka badanna kuuma sugi karo. marka aabihii wuu iska maariyo xugaanaa keena waan bixinayaa isagu buu ku yidhi. ninkii uu ka tegay, inankii uu yaabay hore waxaan isuma maqlin xaqiiqadaasi. aad iyo aad subaxdii dambe tallaabo ka qaaday, wuxuu u tegay ninkii aabihii deynku lahaa, wuxuu siiyey 27,000 oo isagu u lahaa. uu urursan jiray, uu kaydsan jiray, uu arooskiisa ugu talagalay. ninkii wuxuu ku yidhi dufcadan qaybtan hore iga sii qabo, anaana inta kala keenaya iyo suguuyku deynka aabahana ka gudaya. aabihii goortii uu ogaaduu maqlay waxaas wuu diiday, ilaa arrinka aad buu diiday, wuu ku ooyey. ninkiiba u tegay, wuxuu baryay, ninkii uu baryay u soo celi inankayga xoole haysan 27,000 iskaga soo celi. waa lacagu ku daalo urursaday, waa lacag guurkiisa ugu talagalay. yani odag wuxuu diyaara markaa in xataa dii jaal la geyna aba la geeyay, laakiin inankiisa horta baanad qanay noloshii kala dhantaalin au soo celiyo. laakiin inankii baa diiday oo ka dhaartay, yidhi maya, lacagta aabo anaa kaa guday, deynka anaa kaa guday. aabihii aad buu ooyey, aad buu mataqaanaa dee arrinkaasi uu qalbigiisa mataqaanaa u taabtay. markaa inankiisi buu u duceeyey. inankiisu ducooyinka waalidka way kacdaa, waalidku hadduu cid habaarana habaarkiisa ugu dhacaa, ducada hadduu duceeyana way kacdaa. markaa wuxuu duceeyey, inankiisu ugu duceeyey, wuxuu ku yidhi aabo buu ku yidhi ducada gardaro lamada aqbal, laakiin ducada caam waalidku ducada waa mustajaab ducaa buu ku yidhi. markaa wuxuu ku aabihii inankiisa u duceeyey, wuxuu ku yidhi wuxuu ilaahay u baryay inuu ilaahay tallaabadiisa ilaahay isugu toosiyo, ilaahay nolosha tawfiiq siiyo, najaax siiyo, ku najixiyo, mataqaana ku liibaaniyo shaqadiisa iyo ilaahay raalihaashiisa, ilaahay subxaana watacaala ugu deeqa adduunya aakhiraba. subxaana allah. xikmadan diinta islaamka ka barana waxa weeyaan, ama ay naqaana ilaahay bani aadamku inta badan wayn fakarnaa, wayn warwarnaa, halkan wax iska qabanaa, sina ku samaynaa. ilaahaygi weyna waaxidka laakiin ma kala tala saarto. ama qofku iska liibaansan yahay, duco qabo, raali u yahay, ilaahay raali garinayo, ilaahayba uu aftaxaya abaalada. wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib, meel una ka filayn ayuu ilaahay subxaana watacaala. waxaa alcabd fi tafkiir warab fi tadbiir. addoonkuna uu fikir buu ku maqan yahay, ilaahayna tadbiirkuu dabaray, umuurasku dabaridaya. ayaama kadib arrintan ka dhacday, shaqada inankoo jooga, inanay saaxiib yihiin oo muddo aanan is arkin oo aad isku fiicnaayeen ayay is arkeen. wuxuu ku yidhi hebelow waan ku fikiray dhowr cisho horteed, ayaama dhowta qalbiga iga soo gasho, waan ku fikiray buu ku yidhi. waayo nin baa i weydiiyey, nin ganacsata oo businessman ah ayaa i weydiiyey inaan qof aan mataqaanaa ugu sheego ama ugu tilmaamo cid aan garanayo haddii jirto oo nin shaqadana ku fiican oo mataqaanaa dee tilmaaman oo dadka muuqda oo wanaagsan oo shaqadiisa kasoo baxaya oo amiinna ah oo la aaminayo, oon u dhiibo xilka mataqaanaa maamulka isku dubaridka businesskayga iyo idaaradda acmaashayda oo si wanaagsan mataqaanaa farsamo yaqaana. marka wuxuu adigaan kuu soo bandhigay, adigaan kuu bandhigo ku ninkaas inanku aad buu farxay. yani wuxuu arkay in abaal risq kale uu shaqadii lacagta ka ururin karo, waa biideynka ka bixin karo, in abaal risq kale u furmatay buu arkay. ninkii time baa loo sameeyey, ballan buu u tegay. ninkii uu la soo kulmay ganacsatada ahaa ee businessmanka ahaa. ninkii aad buu ugu bogay inankan dhalinyarta ay mataqaanaa dee markuu interviewga ka qaaday, wuxuu arkay inuu mataqaana nin maasha allah yani positionkiisa buuxinayo, booskaas lagu talagalay buuxinaysa. ninkii kale ugu bandhigayba nin u qalma inuu yahay. markaa ninkii wuxuu yidhi shaqadan ku siinayaa, inteebaad ka qaata mushaharadaad ka qaatay, shaqadan ku sugan tahay waa intee, maxaa lagu siiyaa mushaharadaad? wuxuu yidhi 5,000 baa la siiyaa, 5,000 oo riyaal ayaa la siiyaa. ninkii ganacsi wuxuu ku yidhi haddaba aniga dhankayga waxaan ku siin doonaa shaqada ii qabanaysa darteed oo mushaahar bil kastaba ah 15,000 bilidaafa, weliba 6 bilood mushaaharadeed baan kusii hormarinayaa, aan ku siinayaa oo dheeraada dhacmaha wuxuu shaqay dheera 6,000 baan kusii siinaya buu ku yidhi. sida mataqaanayay aad isku diyaariso mataqaana dee umuurahaaga isku dubaridid oo mataqaana wixii kaa aad ku hagaajisatid. subxaana allah, subxaana allah. inankii aad u farxay. yani intaasi waaba 90,000 kuna aabihii deynka lagu lahaaba.
يا لحظة بلاد العكت هذا قوله أيا بنقول السبب سبحان الله وحنا كسينا أبو كيري بقول كيبا طبعا فإذا kasoo galaysa shaqada qabanaysid idaaradda businesska mataqaanaad maamulaysid mataqaanaad adoo mudiirka adoo noqonaysid wixii faa'iido soo gashay ribxna 10% ma ka siin inaka uu ooyay farxad buu ooyay waa ducadii aabaha liibaanti aabi u duceeyay durba midhaheedii adduunkiiba ku harintoon aakhirada tigin ba subxaanallah inankiiba ooyay ninkiiba la yaabay يعني محد أويسا محد سأقول أويدي كاسو شيء كويدي يعني أباهي دين لقول لها ونعيشوا تا أباهي كفر دين كان كده ذلك كفره تطبيق وقتها كان صوب بحياء العكس يحبوا شاكي شاكي وشاكي نينكي بآدي آد وقبوغي نينكي بآدي آد وقيمي وويني إلهي قوانا واحد كأنا سقار الزاقاد هيه إلهي بدك اسكو سخراء نينكي وحيد أنا أبا الدين كلا نوضب بحنيبا هركا كويلو دينكي آباها أنا باكا قضب بحنيبا سبحان الله بالأرض قيمها هذا هي وناقي إن كان ما دام أدوار كبر خير بيدي آباها إن العكت يقول كاجا هذا كبر خير أبادها النيسي أنا وربي أنا وضب حنية سبحانك يا عظيم مرك أخواني وحنا مرك فائدة سننا إني قفك هدو وح وناكسن السمايو ويلها درت السماينيو أما والد أو سماي أما ضد الشيء أو سماي عد دون أو سماي وناق السماينيو هبال إن صون قنصه وإلهي وحويل سبحانه وتعالى وهل الجزاء الإحسان إلا الإحسان قفك هناك سمايا ما بارك ليه أنا وناقة هين يا سبحانه وتعالى إلهي نقدر قرته ee qiimeeya in mataqaana ilaahay kitaabkiisa calaamadaha ku sugan ee liibaanta laga helay adduunyo aakhiro kuwii garta ee ka faa'iideysta ee ku dhaqma ku camal fala ilaahay ay naga dhigo ilaahay waxaan baryaynaa dambigeena dambi waalidka inuu dhaafo ilaahay inuu jannadii firdawsa nagu bishaareeyo inuu ilaahay naga dhigo cafwan dad jidkii nabiga calayhi salaam qabsada oo ku dadaala fitanka jirtay masaabka jirtana ilaahay naga wada badbaadiyo إلهي سبحانه وتعالى مصيبة أمة الإسلام كوها بستي أمة دورن هيومن بين كوها بستي عذر كنا إلهي نقدر القاضي وجمعة والصلاة على الحبيب صلي النبي أن بتصنوا إلهي أن نستغفر وطلبنا ذنب داف لهن وديسنوا إلهي سبحانه وتعالى أن أصول الله بنوا إلهي كربد إنه نقفيده إلهي نلوشيني عادق إلهي نوسو عليو إلهي نعفي عاف ما نصيه أنت مسلمت كل ما تعذر كنا إلهي ونحارسته أنت وسكرات كان إلهي وككعيو عاف ما تسيو إلهي نقوض بالمريو نقوض دافي إلهي من برينا إلهي رمضان خيري عاف ما ديو إنه قارسيو إيمان قوي يتقوى الله سبحانه وتعالى نفتي إذا نفتح قدر داري يتقوى الله وحسن الخلق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاش فضلا إن شاء الله تعالى.